kadib markii ay ku guulaysatay doorashadii isreebreebka ee xisbigeeda. ilhaan cumar waxa ay doorashada maanta oo salaasaa dhacaysa kula tartami doontaa haweeney iyadana madow ah oo la yidhaahdo Cicely Davis oo ka socotay xisbiga Republicanka. ilhaan bishii Agoosto waxay la soo tartantay 4 musharax oo uu ka mid yahay Don Samuels oo horey uga tirsanaa golaha deegaanka ee Minneapolis, inkastoo uu soo galay kaalinta labaad, haddana ilhaan ayay guusha raacday. goobaha codbixinta ayaa la furi doonaa 7 subaxnimo maanta, waxayna furnaan doonaan ilaa 8 fiidnimo. waxa ay hadda ku fadhidaa kursiga aqalka koongareeska oo ay ku matalayso degmada shanaad oo ay ku jirto Minneapolis iyo deegaanada kale ee ku xeeran. mushaarka sanadlaha ee uu qaato qofka xubinta ka aqalka koongareeska waa $174,000 dhanka xisbiga jamhuuriga. Davis waxa ay kusoo guulaysatay inay xisbigeeda ku matasho doorashada guud ee aqalka koongareeska, waxayna la soo tartantay 3 musharax oo xisbigeeda ka tirsan. haddaba waa Thomas Cicely Davis, haweeneyda tartanka adag kula jirta ilhaan cumar. Cicely Davis waxa ay ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka, waxaana loo arkaa haweeney sida weyn loolanka ugu jirta inay ku guulaysato doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, gaar ahaan kursiga degmada shanaad ee aqalka koongareeska ee Minnesota. waxay la tartami doontaa ilhaan cumar oo haatan ku fadhida kursigan kana tirsan golaha wakiilada Mareykanka. waxay qoyskeeda kasoo jeedaan deegaanka Rochester ee New York ee dalka Mareykanka. waxay kusoo barbaartay magaalada gobolka Minnesota aan iraahday. Davis waxa ay doonaysaa in meesha ay ka saarto ilhaan cumar. waxay ka mid ahayd dadkii ka hadlay dhibaatadii dabka ee saameeyey suuqa Waheyn ee Hargeysa, isla markaana waxa ay ka qayb gashay munaasabad gurmad loogu fidinayay dadkii ku hantibeelay suuqaasi. Cicely waxay jaamacadda shahaadada koowaad ka qaadatay Minnesota School of Business iyadoo ku takhasustay culumta maareynta arrimaha caafimaadka. waxay shahaadada labaad ka qaadatay jaamacadda Liberty sanadkii 2016. Cicely Davis waxay bilowday inay dhaqaale u raadiso ololaheeda doorashada, sida ay ku waramayso warbaahinta Minnepost oo soo xiganaysa warbixinta guddiga doorashada. haddaba maxay tahay doorashadan xilliga dhexe ee Mareykanka ka socota? dadka Mareykanka waxa ay mar kale goobaha codbixinta u dareerayaan xilliga dhexe oo ku beegan 8 bisha November oo maanta ku beegan. waa doorasho qaas ah oo ay dadku u codeynayaan siyaasiyiinta ka howlgasha qaybo ka mid ah dowladda oo lagu magacaabo aqalka koongareeska, kaasoo ah aqalka sharci dejinta. waxaa sidoo kale jira xilal loo raadinayo ama loo dooranayo barasaabyada gobolada iyo xilal kale oo xafiisyada gobolada ka tirsan. doorashooyinka xilliga dhexe waxay dhacaan marka uu kala bar noqdo xilliga uu madaxweynaha xilka haynayo. ilhaan ugu yaraan 17 xubnood oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska Mareykanka ayaa la xiray xilli ay ka qayb galayeen mudaaharaad ay markaasi ku taageerayeen xuquuqda ilmi iska soo rididda, kaasoo ka dhacay Washington DC bishii Luulyo sanadkan 2022. bal dhacdooyinkii muranka dhaliyay oo ay ku lug lahayd ilhaan cumar haddii aynu milicsano oo in yar aynu markaasi koobno. bishii June sanadii 2021 ayaa waxaa ilhaan cumar si kulul u weerartay xukuumadda Israel iyo weliba Mareykanka. ilhaan ayaa si kulul uga hadashay weerarada ay dadka ku dhintaan Israel ay ka geysato daanta galbeed iyo weliba kuwa uu Mareykanka ka geystay qaar ka mid ah dalalka islaamka. xilligaasi waxay barteeda Twitterka kusoo qortay waxaan aragnay gumaadka aan la malayn karin oo ay geysteen Mareykanka, Xamaas, Israel, Afghanistan iyo Taliban. waa inaan u helnaa isla xisaabtan iyo cadaalad dhammaan dhibanayaasha xadgudubyada ka dhanka aadanaha ay qortay xilli ay su-aalo weydiinaysay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken intii lagu guda jiray dhegeysiga guddiga aqalka wakiilada. hadalkeeda ayaa xilligaasi kusoo beegmay toddobaadyo kadib markii dagaal u dhexeeya Xamaas iyo Israel lagu soo afjaray xabajoojin. hadalka xildhibaan ilhaan cumar ayaa waxaa ka dhashay muran badan, isla markaana waxaa u jawaabay qaar ka mid ah xubnaha ay ka wada tirsan yihiin aqalka koongareeska oo iyagu ka carooday in Israel iyo Mareykanka la barbar dhigto kooxaha Taliban iyo Xamaas. sanadka 2019 sidoo kale ilhaan cumar raaligelin ay ka bixisay hadal ay sheegtay oo ahaa in siyaasiyiinta u jejeera Israel ay lacag sabab u tahay taageeradooda dhanka Israel. haddaba booqashadii ilhaan ee Pakistan, ilhaan ayaa bishii Abriil isla sanadii aynu kasoo gudubnay, gaar ahaan aan iraahday bishii Abriil horaantii sanadkan 2022 ayay booqasho ku tagtay gobolka Kashmir ee dalka Pakistan, qaybta ay ka maamusho Pakistan. laakiin arrintan ayaa qabsatay warbaahinta kadib markii ay cara ka muujisay dowladda Hindiya.
sidoo kale dowladda maraykanka ayaa dhankeeda sheegtay xilligaasi inaysan ka warqabin booqashada ilhaan ee bakistan. mid ka mid a la taliyayaasha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken derek sholet ayaa yidhi tani waa booqashadeedaan rasmi ahayn. marka la eego isbeddelka ku yimid siyaasadda dowladda maraykanka, booqashadeed wax shaqaa kuma lahan siyaasadeenna buu yidhi. maalmo kadib xildhibaanad kale oo aqalka ku matasha xisbiga jamhuuriga ayaa ilhaan cumar ku tilmaamtay jihaadoon. markii ay bakistan tagtay waxay la kulantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi shahbaaz shariif, madaxweyne ariif alvi iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan dowladda. waxay sidoo kale durbaba la kulantay ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dalkaasi cimraan khan. arrintan booqashada bakistan ayaa waxaa ka dhashay muran badan oo gudaha dalka maraykanka. muranadii u dhexeeyey iyada iyo trumpna sida aad labada socotaanna aad ay u tira badnaayeen. markii uu dalka maraykanka madaxweyne ka ahaa donald trump ayaa waxaa marar badan dhex maray iyada iyo trump muran dhanka afka ah. xildhibaan ilhaan ayaa si weyn u dhaliili jirtay siyaasadaha madaxweyne trump. markaasi dhaariyey ilhaan cumar waxa ay farta ku fiiqday arrimo ay ka mid yihiin taageerada trump uu siiyo dowladda sacuudiga ee dagaalka ka wada dalka yemen, waxayna ku baaqday in trump uu joojiyo taageerada uu siiyo xulafada sacuudiga uu hogaamiyey ee dagaalka ka wada dalka yemen. madaxweyne trump ayaa bishii abriil sanadii 2019 boggiisa twitterka ku qoray hadal jees-jeesa oo ula jeeda ilhaan cumar. xilli uu jeedinayay khudbad ayaa ka hor inta uusan bilaabin waxa uu yidhi waxaan ilaabay ilaan ilhaan cumar israa'iil ma jeclayn, waan ka xumahay. maya, israa'iil iyadu ma jecla, miyay jeceshahay buu yidhi, fadlan waan ka raaligelinaya. madaxweyne trump ayaa markasta waxa uu ilhaan cumar ugu baaqayay inay iscasisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka koongareska maraykanka. ilhaan ayaa ugu jawaabtay waxaad la timid nacayb weligaaba kugu jirtay oo aad u qabtay yuhuudda, muslimiinta, muhaajiriinta, dadka madowga iyo dadka lagu yimid maraykanka. waxaan wax ka bartay bay tiri dadka hadalkaygu uu noloshoodu saameeyey ee adigu goormaad wax ka baran. sidaasi waxaa barteeda twitter ku qortay ilhaan xilligaasi. isla ilhaan waxa ay ka qayb qaadatay baa laleeyahay xaflad lacag lagu ururinaya muslimiinta loses ee halkaasi oo laga dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo. waa sanadii 2019. haddaba dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid ahayeen ilhaaney naarta gal. hase yeeshee arrinta aada loo hadalay xilligaasi waxay ahayd khudbaddii ay goobtaasi ka jeedisay. waxay sheegtay in muslimiinta loola dhaqmo muwaadiniin darajada labaad, sababtan ay tahay dad baa horey wax u sameeyey bay tiri. trump waxa uu soo qaatay muuqaalka ilhaan cumar oo hadlaysa, waxaana uu ku dhex daray muuqaal kale oo ku saabsan weerarkii maraykanka aan irahday bishii 11aad 9keedii. waxa uu hadalka ilhaan cumar u fasiray inay yareynayso weeraradaasi, taasoo sababtay in ilhaan cumar loogu hanjabo dil. ilhaan cumar iyo howlgalka ee militariga maraykanka soomaaliya ayaa ka fuliyeen sanadkii 1993. warbixin cusub oo lasoo saaray sanadii 2019 ayaa muujinaysa in ilhaan ay wajahaysay eedeyn culus oo ku saabsaneed inay bunbuunisay tirada dadka soomaalida ee lagu dilay xilligaasi. howlgalkii militariga maraykanka soomaaliya ay ka fuliyeen 1993 howlgalkaasi oo qayb ka ahaayeen diyaaradaha loo yaqaano black hawk ayaa laga sameeyey film lagu magacaabo black hawk down oo lagu matelaya sida ay wax u dhaceen. qiyaasta lagu sameeyey dadka soomaalida ah xilligaasi la dilay ee lagu kala duwanaa. hase yeeshee dadka qaar waxay ku sheegeen 133 ruux, halka kuwo kalena ay ku qiyaaseen ilaa 1000 qof, balse laguma tilmaamo kumanaan sida ay qortay warbaahinta fox news. waana dhacdooyinkii xilligaasi ay xilka haysay ay iyadu mutaysatay oo si toos ay ugu lug lahayd ilhaan cumar. arrintii ugu dambeysana waxay ahayd markii ugu yaraan aan irahda alexandro ninka la yidhaahdo cortes iyo sidoo kale rashiid talib iyo ilhaan cumar ay ka mid ahayeen dadka lagu xiray xilli ay dibadbax ka dhigayeen meel u dhow maxkamad sare. qoraal ay xilligaasi barteeda twitterka ka soo dhigtay ay ilhaan ku xaqiijisay xarigeedii, waxaana sheegtay in loo xiray ama la xiray iyada oo ka qayb qaadanaysa dibadbax shacab. ilhaan waxay ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ma aan markii ugu horreysay oo ilhaan cumar ay ku lug yeelato muran dhanka siyaasadda ee maraykanka. tan iyo intii ay siyaasadda maraykanka kusoo biirtay waxay ilhaan noqotay mid si weyn looga hadalhayo dalka maraykanka, iyadoo ku lug lahayd arrimo badan oo murano kala duwan dhaliyey. xilligaasina waxaa maraykanka iyadu loo xidhay xilli ay ka qaybgelaysay mudaaharaad ay markaasi ku taageerayeen xuquuqda ilmaska soo rididda ee loo yaqaano abortionka, kaasoo ka dhacay washington d.c. luuliyo horaantii sanadkan 2022. intayn kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal doorashada maraykanka ilhaan cumar oo loolan adag kula gelayso haweeney madow ah maanta oo taarikhdu ku beegantahay 8 November. waad mahadsantihiin sidaad noogu xidhneedeen
tani ismaqalkeena xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.